wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Mudane Warcade iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mudane Cadaani oo maalmihii u dambeeyay u joogay magaalada Burco arrimo la xiriira dhinaca nabadgelyada ee xuduudaha ku beegan gobolka Togdheer iyo falkii ka dhacay dhawaan Jaamac Dubbad ee lagu laayay dadka ayaa Hon Cable TV wax ka weydiiyay xarigii wariyaha Hon Cable TV ee gobolka Gabiley ee ku xidhan magaalada Jigjiga ee dhawaan maamulkaasi ka kaxaystay deegaanka Wajaale iyo arrimaha ugu muhiimsanaa ay ka wada hadleen odayaashii ay kulamada kala duwan la qaateen waqtibaahida waxaad ka hadasheen inaad nabadgelyadii kililka sanaad iyo wixii ka dhacay maamulaha dowladda deegaanka Skopje waxa uu sheegay laba ciidan isku dirirtay dad la xasuuqay aan jirin wax dhibaato ka dhacay aan jirin idinku xukuumad ahaan maxaad u aragtaan dadka ma in la xasuuqay oo la laayay oo ciidanka Itoobiya laayay bise waxaad u aragtaan in aan waxba ka dhicin ta kale dadkii aad la sheegtay cuqaasha waxaad ku qanciseen in sida ku samraan waxa weeye anagu maana oran dad yahow waxba ha sheeganina maana oran dad yahow ha dagaalamina waxaanu u sheegnay nabadda ka dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya inay tahay nabad dhaqaale badan iyo ifur badan iyo hawl badan la geliyay oo qaali inagu joogta in nabadda xumo way imanaya adduunyadu intay jirto shalana way dhacday daraadna way dhacday berina way dhici doontaa laakiin in aqal lagu xaliyo ee aan cunfi iyo dhibaato intii ka daran ka hor aan lagu xalin ee gardhigasho iyo muxuu ahaayay wada hadal lagu xaliyo oo sokeeynimo lagu xaliyo baanu iyaguna way nala qaateen annaguna waan u soo jeedinay way noola yimaadeen waxaanu aragnaa sida kaliya waayo dadka la tagay ma oo umad meesha ku wada nool waa deegaan nina deegaankiisa ka guuri maayo inay nabad ku wada noolaadaan waarta wixii dhacayna la iska dowmariyo ayaan ku hortaa ay sidaad u aragtay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha maamulka kililka sanaad idinku ma xasuuq baad u aragtaan mise laba ciidan isku dishay dawladda xukuumadda Soomaaliya annagu waxaanu ognahay in muxuu ahaayay dhibaato dhacday dawladda kililka iyo federaalka abana waanu kala hadlaynaa marka haddana raaci karto raac markaas aanu ka hadlaynaa hadii la yiraahdo waxa wasiirka amniga toddobaadka hore wariye ayaa laga afduubay maamulka ka haysteen deegaanka Wajaale maamulka dowladda deegaanka Itoobiya wuxuu dacweeyay telefishinka Hon Cable TV qoraalkiisa sababta lagu xiriyay qayb ka mid ah telefishinka qaybta Afrika wuxuu ku sheegay inuu telefishinkaasi ku yaalo dhul aan nabad ahayn qalalaasta ka jiro dacwadiisana ay kala hadli doonaan ay ka qabaan dowladda federaalka Soomaaliya ilaa hadda xukuumadda Soomaaliya kama hadal wariyuhu waa wadani telefishinka xaruntiisu waa Hargeysa maxay tahay sababta uga hadli weydeen arintaas laakiin waanu ka hadalay waanu kala xiriirnay arintaasuna si dhaqsaabay u dhamaanaysaa hadii alla yiraahdo annaguna waxaanu nahay dawladuna si gaar ah bay uga wada hadlaan ama khaladkeena waanu yeelano ama iyagu ha yeesheen waxay ku dhamaanaysaa si degdeg ah hadii alla yiraahdo arintaana waanu ka wada xiriirnay waanu ka wada waana noo socod wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad maanta waa lagu daarintaasi wuxuu wax xiriir aan kala sameeyay ma jirto marka ma idin kala gaar ahaan kala hadlay ma qoraal baad kala hadasheen day warbaahin aad soo bandhigteen aad ka hadasheen ma jirin mise si hoos aad kala hadasheen habraha waan bandhignay waxaan dawladda kula hadlaynaa si gaar ah baan uga hadlay ana nabadgelyada xisaaban ana kala hadlay annaga la hadlay rag kale wasiirada la hadlay meel wanaagsan bay noo maraysaa muxuu in hawsha si degdeg loo soo daayaan marka cadda uu soo saacad الوزير عدان هذا gudbaya ma yimkaan isaga su'aal doonaa ka toobada xagaad kala hadashay mid baa ku sheegay saacad su'aal baa ku weydiiyay dhageysa degdeg aan ku weydiinaya Soomaaliya marka laga hadlayo waa degdeg soo waad ka hadashaa marka Soomaaliya laga hadlayo Soomaaliland marka wax dadkeeda wadaniga aad dibadda ka hadlaysaa si adag baad uga hadashaan dawladda Soomaaliland ilaa hadda ma qarsoodad kula hadasheen dawladda deegaanka Itoobiya qoraal baad u dirteen miseynta warbaahin shirkada soo dirteen baad si cad u cadeysay noqod ka taagantiin waxa weeyaan horta waa inay noo kala soconaan dawladuhu Soomaaliya waxa weeyaan dawlad Soomaaliyeed oo aynu 60kii isku darsanay oo ina dulmiday oo aynu ka goosanay oo ilaa imika ina sheeganaysa
marka cid ay inoola mid yihiin haba yaraatee ninka xorriyadeenna iyo qarannimadeenna iyo dowladnimadeenna la waxba kama jiraan ninkaas wuu iiga duwan yahay dadka kale ummadaha kale hadday Itoobiya yihiin iyo hadday Djibouti wax naga dhaxeeyo ixtiraam dowladnimo anoo wasiir baan tagaa waa la soo dhaweeyaa baabuurka madow baa lay keenaa marti baa lay keenaa xamarna de waad ogtahay marka adeer waxa weeye ka dadnimadaada sheegay waan ku kala duwanaada ka wada ka dhaxeeyo isqadarinta wax way dhacayaan maalmo baxid wax way ka dhacaan waan xalinaa idima soo gaadhaan tan waan xalinaa laakiin in laga dhaxshido tolaay iyo balaayo labada dal adeer waxaan nabad ahayn oo aan ku wadayna habeerti ma jirto iyaguna way nala ogoliyeen nabad lagu wada noolaado inana wayna ogolahay marka waxaynu ka saarana meesha wax la wixii cunfiya waanu dhamaanada waana ka qosleynaa hadda daawan keebel wasiir wax weey maalinta ay wasiir dhacday waanu ka wada soconaayo xaqana waanu la hadalnay Soomaad garan dawladda Itoobiya da safiir bay leedahay Soomaaliland joogo isagana waa la hadlay wax kasta oo dawladda iyo dalalka kale ku wada hadlaan dad saxaafada looban bandhigo kayso soo garan meesii laakiin waxa weeye waa laga wada hadlay hadana adigu ogeyn oo hoon keebal shaqaalihiisa mulkiilaagu ogeyn la hadlo waan ogeysiinay farxaan xaaji cali oo dubay jooga telefoonana ku hadalo waan ugu sheegnay xaaladdu meel walba si halkii mareysay ilaa maalintii aan ku dhaaday iyo qoliyaha daarkiisa jooga burcuda warku ku yar dambeeya hadda soo garan meesii marka waxa weeye ma waxaan sheegayaa ma waxaan ka hadlayaa yani waanu ka hadalnay muraayadana waan soo taagayo nin si kale hadalku wuxuu ku wanaagsan yahay in si qurux badan loo wada hadlo hadalada leeyahay muraayadana soo taagin luqadaha inaad joojisaa qurux badan oo sidii wariyay waxa tii weeyo wareeyo weyn baa tahay oo gobolkan joogay wareeyo gobolkan joogo weyn baa tahay inaad si qurux loo hadashaa fiican mulkiilahaaga aad u shaqaysaa woogay inaad waan la hadal hawl xiritaankeedana kambaniyada dawladdu way kala hadashay kuwa xilay baanu kala hadalnay Soomaad garan laakiin de contractna waa leedii oo contract baa maxaan ku raadayay hoonkeeda la gashay annaguna qaybteedanu ka hadalnay waxaanu ka hadalnay inankaas inaanu wax dambiye gelin in la soo daayo wax qarsoonna ma ahayn Kaysa Ahmed Digaale Hoon Cable TV Burco.